golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta kulankoodii khamiislaha ku qabsaday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa xilka qaadis ku sameeyay taliyihii ciidanka booliska Soomaaliyeed Generaal Cabdi Xasan Xijaar sidoo kale golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xilkan u magacaabay ama xilka taliyaha booliska ciidanka Soomaaliyeed u magacaabay ciidanka booliska Soomaaliyeed u magacaabay Generaal Sulub Ahmed Firin oo horay u ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya Generaal Sulub ayaa waxa uu deegaan ahaan ka soo jeedaa deegaanka ama maamulka Jubbaland sidoo kale qodobada aan idin soo bandhigi doono waxa ay kamid tahay maxay kaga dhigan tahay dawladda federaalka Soomaaliya horumarka ay ka gaartay hawada Soomaaliyeed waxaan soo bandhigi doonaa hadii uu rabbi raalka noqdo qodobada soo socda ama si qoraal ah idin kugu soo tabin doonaa duqeyman ay diyaaradaha Mareykanka ka geysteen gobolka Bari duqeyntaasi oo loola beegsaday kooxo Daeshiin ah kusoo dhawaada waa sugo yare qodobada warkiyo toosanna waan idin soo gudbin doonaa wixii tala ahna inoo soo gudbiya tijaabo ayuu ku jira page-ka sugo yare si horumarin loo sameeyo idinka ayaa